Halkani waa barta shidan Global TV magaalada Maalmo. Waxaa maanta oo ah 30 bisha Abriil maalin ka hor dhammaadka bisha Ramadaan lagu qabtay isu soo bax ay dhigayaan qaar ka mid ah muslimiinta magaalada Maalmo oo ay weheliyaan kuwa ka yimid magaalooyinka kale ee dalka Sweden si ay u cambaareeyaan falalka iyo ficilada xagjirka reer Denmark ee caadeystay waayahan inuu gubo kitaabka Quraanka Kariimka ah. Ninkan gubaya kitaabka ayaa ah mid had iyo jeer dhibaato u keena dalkan Sweden oo ah waddan xasiloon oo ay ku nool yihiin dad muslimiin ah. Dadka muslimka ah ee ku nool Sweden ayaa ah dad ka muuqda mujtamaca dhinacyada dhaqaalaha, aqoonta, siyaasadda iyo weliba tirada dadka. Dadka muslimiinta ah ayaa ah inta badan dad codkooda siiya xisbiga ugu weyn dalka Sweden ee Social Democrat-iga iyo asxaabta kale ee bidixda. Sida dad badani rumaysan yihiin, ninkan xagjirka ah ee caadeystay nacaybka muslimiinta ayaa gacan saar dhow la leh midigta fog oo ugu horeeyaan xisbiyada Sverige Democratic iyo Moderaterna. Ficilada ninkan Daynishka ah ayaa ka dhaliyay waddankan Sweden rabshado ay sameynayeen dhalinyaro aan xilkas ahayn, taas oo sababtay in qaar badan xabsiyada la dhigo. Mudaharaadka maanta ee ka dhacay magaaladan Maalmo waxaa ka dhex muuqday madaxda xisbiga Nyans oo ka raadinaya taageero magaalada Maalmo. Magaalada Maalmo iyo qaar badan oo ka tirsan magaalooyinka waddanka Sweden ayaa looga oogay dambiyo xagjirkan reer Denmark ee raba iska horkeenka shucubta ku dhaqan dalkan Sweden. Halkani waa barta shidan Global TV magaalada Maalmo, Sweden. Halkani waa barta shidan Global TV magaalada Maalmo. Waxaa maanta oo ah 30 bisha Abriil maalin ka hor dhammaadka bisha Ramadaan lagu qabtay isu soo bax ay dhigayaan qaar ka mid ah muslimiinta magaalada Maalmo oo ay weheliyaan kuwa ka yimid magaalooyinka kale ee dalka Sweden si ay u cambaareeyaan falalka iyo ficilada xagjirka reer Denmark ee caadeystay waayahan inuu gubo kitaabka Quraanka Kariimka ah. Ninkan gubaya kitaabka ayaa ah mid had iyo jeer dhibaato u keena dalkan Sweden oo ah waddan xasiloon oo ay ku nool yihiin dad muslimiin ah. Dadka muslimka ah ee ku nool Sweden ayaa ah dad ka muuqda mujtamaca dhinacyada dhaqaalaha, aqoonta, siyaasadda iyo weliba tirada dadka. Dadka muslimiinta ah ayaa ah inta badan dad codkooda siiya xisbiga ugu weyn dalka Sweden ee Social Democrat-iga iyo asxaabta kale ee bidixda. Sida dad badani rumaysan yihiin, ninkan xagjirka ah ee caadeystay nacaybka muslimiinta ayaa gacan saar dhow la leh midigta fog oo ugu horeeyaan xisbiyada Sverige Democratic iyo Moderaterna. Ficilada ninkan Daynishka ah ayaa ka dhaliyay waddankan Sweden rabshado ay sameynayeen dhalinyaro aan xilkas ahayn, taas oo sababtay in qaar badan xabsiyada la dhigo. Mudaharaadka maanta ee ka dhacay magaaladan Maalmo waxaa ka dhex muuqday madaxda xisbiga Nyans oo ka raadinaya taageero magaalada Maalmo. Magaalada Maalmo iyo qaar badan oo ka tirsan magaalooyinka waddanka Sweden ayaa looga oogay dambiyo xagjirkan reer Denmark ee raba iska horkeenka
shucuubta ku dhaqan dalkan Sweden. Halkani waa barta shidan Global TV magaalada Malmo, Sweden.